maanta waxaan ka hadlaynaa mas'alada luqda xaq ay gabadha walaasha ay kugu leedahay maxaa yeelay markasta waxaa soo laabta su'aalooyin cajiib ah inta badan haddaan rag nahay xuquuqda ilaahay nagu waajibiyey oo gabadha walaasha kula dhalatay ay kugu leedahay waxaa laga yaabaa inaad ogsooneyn inaan naftiina xasuusiyo isla markaasna aan ka digo dadka xuquuqda gabdhaha la dhashay ku tumanaya sida la socotaan walaalaha waxay ka mid yihiin raximka waxyaabaha in la xiriiriyo waajibka ay tahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku dhaartay haddana gabadha markay tahay waa gabar daciif ah mar kasta waxay u baahan tahay sanad iyo wixii tiirsatay saas daraaddeed ilaahay subxaanahu wa tacaala gabdhaha xaqooda meel buu saaray markay aabbahood joogana aabbahood ayaa nafaqadooda waajib ku tahay haddii uu aabbaha geeriyoodana walaalaha ayay ku soo guuraysaa gabadha walaalkeeda nafaqadeeda laga rabaa halkaas waxaa garan kartaa marka gabadhii inay mas'uuliyaddeeda ninka walaalka uu mas'uuliyad wax ka leeyahay taasaa keenaysa marka inuu gabadha ninka mar kasta uu xasuusto gabadha walaashiisa gabdhaha nacam gabdhaha waa calool jilcan yihiin waa baari weeye walaalahood say u jecel yihiin horta ragga ma u jecel yihiin wiilasha gabdhaha walaalahood saas ma u jecel yihiin maxaa dhahay gabadha waxaa laga yaabaa inay wax kaa soo korisay hooyada adigu da inay ku dhashaa laga yaabaa oo adiga iyada ku soo korisay ku soo caano siisay hodha ugu soo dhigtood maanta waxaa laga yaabaa walaasha meesha ku dambaysay ugu hooyada kaliya aabbaha iyo waalidka hooyada iyo aabbaha walaasha ku xigto maxaa yeelay waa qof daciifa in loo naxariisto la doonayo waxay yidhahaan culammada gabdhaha ilaahay subxaana wa tacaala naxariistoo ilaahay ku abuuray qaluubtooda oo la yidhi mar kasta mas-uulka ha laga naqdo hala ilaaliyo hala garab istaago waxaa weeye caatifo ilaahay ku abuuray weeye walaashaasay kuu jeceshaha adii muu jeclin walidaalika nebi muuse waxaa la yidhi calayhi salaam waxa badbaadiyey ilaahay subxaana wa tacaala markuu qur-aanka noogu sheekeynayo waxyaabaha badbaadiyey gabadha walaashiisa ahayd oo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka noogu sheegay ayadaha qur-aanka oo noogu sheegay muxuu soo u badbaadiyey saad garanaysaa fircoon waxaa la yidhi markuu wiil kasta u dilayey nebi muuse markii sanduuqa lagu riday oo ilaahay amray inay sanduuqa ku rido gabadha walaashiisa waa jooga weyday hooyadeeda waxay u tiri waqaala liukhtihi waxay ku tiri walaashiisa muuse walaashiisa waxay ku tiri hooyadaa ku dhahayso usii raacraacay tiri meesha gabadhi waxaa la yidhi sanduuqii daba socotay ilaa guriga fircoon uu ka tegey guriga fircoon cid kasta ma gasha nafteeda dan u hortaa la yidhi waa gashay ay marka dambe ay tiri manii sheegaa qof nin ka faala qaadayso idan sababta hooyadiis muuse uu soo noqday gabar ay ahayd walidaalika ilaahi subxana wa tacaala uu qur-aanka noogu sheegay in gabadhaas tamshi ukhtuka nabiga gabadhaas qur-aanka lagu sheegay iyadoo ukhti la dhahay magaca ukhti la siinay waxaa ula jeedaa saas waxaa soo naqnaqatay inta badan dad su'aalo weydiinaya dhahay walaashay ma siin karaa zakada waa wax cajiib wey walaasha maxaa inay sanad baaha inaad dimbaado ogtahay haddii walaasha ay faqiir tahay masruufkeeda adigu kugu waajibay ilaahay ku saaray ninka ragga ah gabdhaha waa aragteen waa dadaalaan waxay leedahay nin inay guursanaa laga yaabaa walaalkeed ayay maanta dhan daba socotaa walidaalika waqtiga xajaaj ibnu yuusuf ayaa waxaa la yidhi gabar uu qabsaday wuxuu qabtay walaalkeed iyo wiilkeeda iyo ninkeeda qafaal ku qabtay markaas wuxuu ku yidhi kala dooro midaan kuu daynaa mid dooro waxay tiri nin waa la heli karaa tiri wiilna waa la dhali karaa laakiin walaal lama helaya tiri walaalkay ii day markaas wuxuu ku yidhi kulligiina ii day wiil xajaaj ibnu yuusuf sida kutuba taariikhda ku qoran macnaha gabadha waa laga yaabaa sacrifice inuu samayso waa arkaysaa gabdho badan oo yurub hadda soo aaday aa arkaysaa inay shaqayso maxaa dhacay guursanin ee guurkeeda dib u naqatay oo guurka ka daahay ee inta ilaahay ilma sii lahaa maxay sacrifice-kaas dhan u samaysay iyo dhibkaas waxay u samaysay walaalkeeda yarta inay soo dhoofiso talow ragga mowqifkaas idinka abaalka cala alaqal abaalkaas ma gudna annaga hadda aragnahay balse xuquuqda ilaahay nagu waajibiyey ayaa raba halkaa inaan ka sheego arag gabadha faa'iidada leedahay shareecada islaamka xuquuqda uu kugu waajibiyey inaad ogaato xadiiska abi saciid alqudri nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy man kaana lahu ثلاث banaatin ninkii saddex gabar u dhalata oo wuxuu yidhi ثلاث akhawaatin wa fii riwaayatin bintaani ukhtaani ninkii laba gabar u dhalata iyo laba gabadha walaalihiisa u dhalasha oo fa axsana suxbatahunna xiriirkooda wanaajiya walaasha xiriirkeeda ma wanaajisaa mas carruurtaada keliya ka fikirtaa waddankay jirtaa waxaa laga yaabaa inay wuxuu leeyahay xaaladdeeda aad ogeyn wuxuu leeyahy wataqa fiina falahu aljanna idan walaashay aniga aan marsuufkeeda iyo xaaladdeeda aan la socdo nebigu wuxuu ii ballan qaaday janno inaan ku galayo sidii gabdhahaygoo kale inay tahay mas-uuliyaddaasa lee saaray xadiidka kale wuxuu leey nebigu calayhi salaatu wasalaam riwaayadda ahayd wuxuu leeyahay ثلاث akhawaatin oo ثلاث banaatin ukhtaani hadday tahay wuxuu yihi falahu aljanna waa laftigeeda can umu salama radia allahu canha xadiiskan dhegayso
laga yaabaa walaasha ana weligaa telefoon u dirin aawicin xaaladeeda la socdo inaan qabo ilmo badan haysataa yuruba ku nooshahay walaasha xuquuqdeeda ma siisid xataa telefoon uma dirtid xataa soomaha nabiguna wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam haddaad walaasha ka war haydid jannada ayaa ku galaysaa sidii gabadhaada oo kale walaasha carruurteeda ma ogid masruuf ma siisid bal waxaa laga yaabaa walaasha ina xaaskaaga ugu eexatid laga yaabaa ma dhahay xaaska ha laga eexdo laftigeeda cadaalo u far laakiin waxaa laga yaabaa gabadha walaasha gurigaaga inay iimaan karin maxaa dhacay islaantaada ka baqaysaa xuquuqda maanta gurigaaga inay walaashaas u gal weydo ee carruurtaada ay eedid u tahay marka maqaalibta inaan didan maxaa dhacay waxaan ilaawna xuquuqda ilaahay na saaray xadiisku musalama dhageyso wuxuu leeyahay radiyallahu anhu sami'tu rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam nabiga naxariis korkiisa ahaatee wuxuu yiri yaquulu wuxuu yiri man anfaqa ala bintayn waqtayn ninka marsuuf u qora laba gabar oo dhalay ama laba gabar oo la dhashay taas maxaa gabdho badan ku dayacan yihiin Soomaaliya maxay ku dayacan Yurubtan ay ku dayacan yihiin wuxuu leeyahay nabiga alayhi salaatu wasalaam oo dawaata qarba ah wuxuu yiri hadduu ku dadaalo kaanata lahu satratan min an-nar naartik xijaabayan qiyaamaha gabadha walaasha marsuuf u qorto la rabay inaa marsuufteeda gaajata waxa leedahay sanadka markii gaar zakada muslimka billahi alayhi xuquuqda wala waranka waxay leedahay gabadha xuquuqdeeda kugu leedahay xaqada difaac inaad difaacdid gabadha inaad difaacdid oo xuquuqdeeda difaacdid oo rag badan ayaa waxa jir maanta gabadha walaasha ay qabaan ay ku ciyaarayaan adigina ma ku iimaan karto maxaa dhacay adiga ma kaaga cabsanayo islaamka wuxuu qabaa gabadha walaalka oo la qabo Soomaalida maamahdeeda markii laga soo tago ina ninkaas uu ku ixtiraamo oo yiraahdo gabadhaas nin baa isu siiyay walaalkeeda joogo laakiin gabar walaasheed uu og yahay ninka qabay inuu walaasheed soo raacdaynayo oo dhahay war ninkaaga u tag ana hay iimaan kuma cisho karo meelan ku dhahayo ninka uu dayacay gabdhaha qaarkood ma furna walaalna waa leeyihiin xuquuqda isma'u hada xadiis rawaa imaam bukhari sawir ma'qal ibn yasar radiyallahu anhu wuxuu leeyahay nin baa yimid zawajtu wuxuu leeyahay ukhtan li min rajul nin baa walaashii ku daruuyo fadalaqaha waa soo furay hadduu ku ixtiraamayo ninka walaasha qabo adeeyna kugu xirantahay markuu ka arko ina walaasha garab taagantaa kugu ixtiraama laakiin walaala ah soo wicinin ka garab haynin asagan waa cabidinaya gabadha ugu dhalatay xuquuqdeedna adaal ilaahay ku weydiinaya bixi waxa dhacay soo cararta malaha hadduu ogaalahay inuu walaal garab taagan gabadhaas saas ma sameeyay ninka saas daraadeed macqal ibn xuurin baa gabar u dhisay aan ku dar waa soo furay xataa meelo tashanur ma ku furnay markay ciidada dhameysatay ayuu wadan yimid wuxuu gabadha mar labaad isii ilaa markay ciidada dhameysatay rajactu wax malaha inuu doonto waliga doonto وكاس عوري لا والله زوجتك وانكو بوري وفرشتك وانكو فراش برجيد وكرمتك وانكو كرامي ولا شيء يكو آمني وصوفرتك والله أنا كسيني يمكن النبي يسكولتك عليه الصلاة والسلام نبي كم عيديني لكن كان هل وحبا لو إيدي ولالك حي القبر أيوة نك واربت نك إذا نكون نقطه قبل ولا لها قار وحاجة أيجنا نن إناك إسجعل oo israba inay isku laabtaan wuxuu leeyahay ninkaas mar uu xumeeyay aniga wax ii sameeyay ma ku naqan kartid ma arki karo diinta ma qabto haddii walaasha ay raali ka tahay ninkan ay ku keensatay ee ku tiri ana raali ka xaq uma lidna u diidin wadaalika aayad quraan ku soo degtay macqal ibn yasaar markuu saayiri ay ninka gabadha u diiday ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu aayad quraan ku soo diray fala ta'dhuruhunna an yakahna azwajuhunna war gabdhaha walaalihiina haddii ninkooda rabaa inay ku naqdaan hada u diidina leeyahay nabiga uu yeeray aayada soo degtay macqal ibn yasaar markaasuu dhaha الآن يا رسول الله هذا أنقله لكن نبي كم عنانا معقل ابن يسار ما ده محنك وجديد حياة جرب كلها لكن ولا شيء سانك لا صفة عرفت إن المهد أولى رفت إن كذا مركز ولذلك ولا لو حجر قبل ولا شيء لقوا جرسلاية وده نكاس إنه مانع حمي نكاس وحي جسمي محاكم حمي قبل ولا شهادات أموري عضل إله القرآن كوادي ولذلك ولي العاضد شرع الإسلام كفقه وحقبة هذو نك أباه ده حتى قبل يسنو جوري ربن أو سبب أو شيء أسوجوا على مهرنا الصغر ولايد ولا قاضي يا سودان كقاضي تضحينا وسمي واجب موتا ولا شيء نفترض هورت راح هذا إنك هورت ولا شيء درادين اسمه حديث جابر بن عبد الله أبي سعد قال قولك عبد الله وحكى كتجي على الله جابر سجال قبله ولا لا سجال كي قبله ولا لا أها وسوا برباريا وحوسير قبر وجورس نينكو حجعلي نفتيسه إنه قبر ير أو بكرة وأسوق بالله وجعله baa guursadoo yiri markuu guursaday nabiga uu yeermaan wuxuu yiri maxaa guursatay markaas uu yiri gabar islaam weyn garooba guursaday islaan garooban guursaday markaas uu hal tazawajta wuxuu yiri bintan tulaaciba maxaa gabar oroosayso bikra ah oo asla cayaartaan oo isku dhaqan barataan nabiga markaas uu jawaab wuxuu rasuulka allah aabay wuxuu yiri markuu geedo 9 gabdho walaal ugu tagay hada gabar ayagoo kala da'dooda u keeno
aan guursado waxa laga yaabaa inay iga dayacaan gabdhaha walaalahay saas daraadeed naftiisu garoob u guursaday si walaalihiis gabdhaha u ilaaliyo nabiguna waa ku amaar arrintaas khayran uu yiri laka khayran oo ku yiri nabi alayhi salaatu wasalaam nabiga alayhi salaatu wasalaam gabar ma dhalatay nabiga siradeeda gabadha waxa la rabaa inay xariirisid aad darajaysid markay telefoonka ku soo dhigto walaasha ay soo wacday adiga inaa wacdid waa gurigaaga markay timaad inaa qaadid maxaa walaasha nabiga alayhi salaam gabdha walaala ma dhalan laakiin waxa jira gabdha ay naas la nuugina jiray waxa lim saacdii dadkii nuuji jirtay Soomaa Shayma bint al-Haritha nabiga la nuugtay nabiga ma ogso dagaalkii oo bani Sacd markii la galay alla soo qabta qafaash dadka la qafaashay ee gashay Shayma wala soo qafaalay markaas markii nabiga aragtay wuxuu ku tiri yaa rasuulullah inni ukhtaka min ar-radaa'a rasuulku naas isla nuugtay walaasha ay aniga naaska isla nuugteen nabiga waa yaabay gabadhii dadka la soo qafaashay oo maxabiista ahaa gabar walaashiisa ku jirtay nabiga alayhi markaas wuxuu yiri wama calaamatik maxay taa yiri calaamada ina walaalka ah maxaa ku cadeynaysaa markaas wuxuu tiri dhabarkaaga fiiri tir qaniinshada aniga oo yar oo isla ciyaareyno naas markii isla nuugayeen dhabarka ka qaniina kugu yeelay tiri nabiga waxa xasuusay qaniinadu arkay nabiga waa isceli waayay markuu ugu horeysay wuxuu qabtay go'isoo firaash wuxuu dhulka u firaashay walaashiisa wuxuu yiri kaalay horta dhulka ka kacuur go'ayga ku firay markaas uu offer siiyay wuxuu u bandhigay adigina walaasha maxasiisa walaasha ninki qabaa dayaca laga yaaba mana qabno mana yeel marman uu maqantin walaasha faqiir ku tahay dadka kala marsuuf adigina inta aan ruqtaada ku marsuufata ma siisid wax ma siisid waajibka ilaahay ku saarimiyaad ogsooneen nabiga markuu u firaash gabadhii uu ku yeeray Shayma wuxuu ku yiri qiyaarka qaado laba arin qaado wuxuu yiri inaad nala joogtid in ahbabti fa indi hadda jecesho wuxuu yiri maanta aniga gurigeyga ana ila joogaysa walaashiis waa isnaas nuugay ma walaashiis caloosh iska soo baxeen ma wali wuxuu yiri hadda jeceshahayna ani agteeda joogaysa kaale hadda rabtidna wuxuu yiri wa in ahbabti amta'tuki wa tarji ila qomkaagu dhaqana rawaati kale waxay ahayd wuxuu ku yiri sani tuqda waxa artay weydiisay walaashayda wuxuu leeyahay washfici qofka artay u shafaac hebel haleeday walaasha hadii ku tiraahdo waxaasan kaaga baahanaa ma dhileed kan aanu ii xireen ma dhileed nabigu wuxuu yiri qofka artay deeso oo dadka la soo qafaalay waxay tir rasuulka Allah aniga walaalkayo waxaan rabaa tir ehelkayga ku noqon xaliil wiil walaam adoon iyo gabar kala jaariyad adoomadu si wuxuu kan sahay ka dhigay uu ku si gabadha miiraasay ku walaal dhaxalkeeda raga dhaco gabdhaha maanta markay nala soo waco waxay leeyihiin gabdhaha aniga waa ka talaanusin wiilasha ugu tanaasul maxay ugu tanaasul xaqeed maxaa wiilku xor waa inuu dhaco xaqeed inuu dhaco raba نتقي الله